waxaan xusuustaa waqti aan qof saaxiibanahay i weydiiyay cabdirashiidow maxaa cudurrada sababa waqtigaas xog fiican kama aanan haysan waxa uu yahay cudur iyo waxa sababa oo waxaan aaminsanahay in cudurku yahay wax nasiib ah oo dadkoo dhan ku dhaca haddii daawo loo cunana laga bogsanayo isbeddelka waqtiga iyo da'da iyo cilmiga kadib waxaan ogaaday in ay jiraan nooleyaal aad u yaryar oo ilma aragta ah microorganismna cilmigu u yaqaan oo ay ka mid yihiin bakteeriyada iyo viruska oo halis weyn ku ah dhammaan nolosha kuwaas oo sababa cudurrada kala duwan waxaana barnaamijka toddobaadkan ku soo qaadanay waxyeelada viruska iyo qaabka uu weerarka u soo qaado waa mar kale iyo barnaamijka toddobaadka ee arrimaha sayniska waxa ku wareegay madaxaaguna la xanuunay boqolaalka buugaag hadda hawlwalin dhammaan waxaad kaga kaaftoomi kartaa qaab casri ah inaad Facebook page kala socotid daraasadii u dambeysay oo maqal iyo muuqaalba leh aadna uga kaaftoomi karto buugaagtii badnaa si fudud ayaad ku fahmi kartaa waxa kaa xigta inaad laag saartid kuna xignaatid pageka Facebooka shaashada kaaga muuqda bulshaya hay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshaya hay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshaya hay aqoontiyo ku dadaala. This is a new strain of the flu virus, and because we haven't developed an immunity to it, it has more potential to cause us harm. This creates the potential for a pandemic. Swine flu has now spread to nearly every country in the world. For the first time in over 40 years, the world appears to be on the brink of a global epidemic of a new flu virus. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre domuz gribi neredeyse dünyanın her yerine yayıldı. khubarada cilmiga ee sayniska waxay baarayaan viruska iyo bakteeriyada halista weyn ee ku ah caafimaadka iyo korsiimada nooleyaasha in ka badan qarniyo walina ma aysan helin natiijo ka dhan ah viruska xitaa iska badaa ee khubarada sayniska xog cilmiyeed sugan kuma qeexi karaan viruska iyo evolutionka waxay tahay doodaha la iska meermeeriyo viruska iyo xiriirka evolutionka waqtigu laga doodayo si kastaba ahaatee viruska in badan ay khubaradu ka doodeen xitaa khubarada qaarkood uma aqoonsana inuu yahay halka qaarkood kalena ay qabaan in virusku uu yahay noole haddaba sidee ayuu virusku ku soo weeraraa ka noolaha bani aadamka virusku waxa uu kala baxaa noocyo kala duwan waxa ka mid ah virus faafa haddii aad horay u maqashay cudurka faafa waa viruskii oo faafaya marka uu jirku noolaha bani aadamka soo galo virusku marka koowaad waxa uu control ku sameeyaa unugyada jirka hadba unuga ku haboon uu qabsan karo marka uu qabsado unuga ayuu virusku uu bilaabaa inuu unuga dahaarkiisii ka soo gudbo si toos ahna uu u gudbo xarunta unuga ee afka Soomaaliga loogu yaqaano bu'da kolkaas virusku waxa uu bilaabayaa in genetic materialskii uu xambaarsanaa sida DNA-ga inuu unuga u gudbiyo waxaana unugu noqdaa unug soo saara virus sidaasina viruska ayaa ku bata jinka noolaha bani aadamka ilaa uu ka ciribtiro unugyada difaaca jinka qofkana waxa uu noqdaa bukaan la ildaran cudurka haddaba inta nooc ee adduunka cudur ka jirta intaas in leeg ayaa viruskana noocyo kala duwan u leeyahay khubarada sayniska ilaa hadda ma aysan fahmin awoodani xooga badan ee virusku leeyahay iyo sida uu ugu guuleysan karo inuu dilo dhammaan nooleyaasha si fududna dunida oo dhan ku faafo xaqiiqdii iyo dhabtii waa arrin cajiib badan oo ku tusin karta in haddii inaga oo bani aadam nahay in ay jiraan awoodo inaga qarsan oo halis weyn ku ah caafimaadkeena الله سبحانه وتعالى قرآن كيسي آيات كمده وحو إنه ليه سورة فتح الله وحا أسكناده عيدنك سمد يدولك الله وامد شرف بدن حكمتنا بدن خبرنا ساينسكو way arkaan awoodani viruska ilmaaragtada ah wayna ogyihiin in ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha bini'aadamka haddana ma ay fahamsana badankoodii oo xaqnimada iyo abuurka waxa ayna beeninayaan aayaadkii alle allah aayad kale ee quraanka waxa uu ku leeyahay لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فيروسكو وموجنت يمد كمده أبودها الله سبحانه وتعالى فيروسكو ونولئ المارتاه أو آد
kaas oo awoodiisu ay la eg tahay inuu bunbuugiyo ama bedelo dhammaan bani aadamka oo dhan. waa yaab iyo cajiib, miyaad qiyaasi kartaa inay jiraan nooleyaal aad u yaryar oo aanan arki karin haddana awood xoogan ay u leeyihiin inay baabi'iyaan ama bedelaan dhammaan bani aadamka oo dhan? waa yaab. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها